ذهب لعمودي عمر في الكهادي قضاء الدور حبل هذه الغفاي ذهب لعمودي عمر في الكهادي قضاء الدور حبل دقاك ذهب لعمودي سيدي داوي لمودي باقي دينتا هذا النفس دوري سفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال iyo dhageystayaal baa ku soo dhawaada wali waxa dhexda ugu jirnaa waa maqal raadiyo alaabaan hawada soo galno saacadu markay tahay 8 anoo ku jiri doona ilaa caawa 12 habeenimo. daawadayaal waa barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay bal inaan bulshaweynta la wadaagno wacyigelinana annagoo markaa isku dayayna bulshaweynta inaan tusno waxyaalaha ama usbuuca ama bilaha aanu isleenahay waad soo bowsateen oo markaanu soo bandhigno bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caalamka. waa maqal raadiyo, waa Inter FM, waa US Streamka aad waliba si toosana nogala socotaan. waxaan soo dhaweynayaa marka hore sida caadiga ahba walaalkay Jamaal Axmed Aqoonyahan oo naga kaba barnaamijka arrimaha bulshada iyo siyaasadda waddanka Norway. marka hore aan ku soo dhaweeyo walaalkay Jamaal. waa maasantahay waan dhawahay aad Jamaalow, sidaan dad badan halkan ka arkayaan barnaamijkan haddaad isleedihiin bulshada waxbuu taraya walaalayaal ama wadaagayaal waad qaybin kartaan sida markaa ay bulshadu inta kalena bal ay u ogaato barnaamijka aanu ka hadlayno. caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa barnaamij qoran aan u samaynay mawduuc aan ugu talagalno u samayno ka digtoonow qowlaysatada markay noqoto xagga caafimaadka baac-mushtarka ee ka dhex dilaacay Soomaalida iyo waddanka Turkiga iyo waliba Soomaalida iyo qurbaha. marka hore annagoo su'aalaha isweydaarsan doona Jamaal ayaan waxaan leeyahay bal Jamaalow, markaad eegto usbuucan iyo sanadkan cusub bal iyo caalamka Soomaalida ee adduunka bal sida ay isku bedeleen markay noqoto xagga ganacsiga iyo baac-mushtarka iyo waliba qaybta caafimaadka, bal maxaad noo soo bowsatood la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed? mahado haddii aan ku bilaabo waddankan aan ku noolay waddanka Norway waxaa baryahan u dambeysay ama maalmo u dambeysay dhacay qabo ama baraf aad xoog badan aad iyo aad oo dadku waxoogay waxaad moodaa inay dareemeen inuu baraf aad u badan dhacay qabowguna uu siyaada ahaa laakiin waa la qabaa mahado waxa ka dhacday wadamada sida Mareykanka iyo Kanada oo kale kala koodu wadaagtiisa. marka waxyaabo badan oo kale waxaa jira magaranaysa dhinaca qabowga ama ku saabsan iyo waata mahado marba leeyahay magaranaysa cimiladii baa isbedelaysa isbedel baa socdo waxyaabo badan baa imanaya marka taas ma waxa isla magaranaysa inay soo geyso laakiin waxaa jirta arrimo badan oo sheegtadiguba u baahan in laga wada hadlo ama la dhameeyo. way waxaad mahado xustay inay jiraan de kulay sawir markuu bilaabmo dhib iyo khasaaraba waa leeyahay dhinaca ganacsiga hadday noqoto dhinaca tiknolojiyadda ay noqoto waxaa jira dee horumar badan ay sameynayaan marka dad badan waxaa jira sanadkan ay qoraysan tahay magaranaysa inay sameeyaan horumar dhinaca noloshooda hadday noqoto ganacsi iyo hadday noqoto waxyaaba kalaba dad badan oo xanuunsan waxay jireen caafimaad helaan marka waa waxyaaba marka kale rajadu waa fiican tahay sanadka 2019 waa sax weeye. haddaba Jamaalow, waxaan ugu maqaalaha oo meelo badan ka aragnay in Soomaalidu markay noqoto xagga caafimaadka waliba dadka wax haysta ay xagga India iyo China wadamadan kale ay awoodin marka Yurubtana inay qaarkood yimaadaan marka ay haystaan baasaboorradan kala duwan ay haystaan ama baasaboorkan Carabta duwala Sacuudiga ama baasaboorradan lagu safro. Jamaalow, marka India dadka hore waagay tagi jireen wali lama arag markaad eegto dadka tabarta yar dee badanaa waddankooda iska joogaan oo waxay iska sugaan dhibaatooyinka ilaahay bay iska baryaan dadka ladane ama dowladda ku jiraana waa la qaadaa markiiba. mar dhowidna waad arkaysa beri dhowid oo Hargeysa waxaan arkayay nin wasiiro la soo booqdo Muuse soo booqday oo oranayay waa inaad halkan la joogaa laakiin isbitaal private-na ay joogeen. bal dadka markaa isba bardhigto iyo dadka masaakiinta maxaad ku soo kordhinaysaa bulshada? mahado ummadda Soomaaliyeed joogto maanta waddankii waxaa haysata dhibaato dhinaca caafimaadka ama waxbarashada ama nolosha aad bay adag tahay marka waxa weeye dee qof weligeed boo dhici jirto qofku markuu dee ama dhaqaale helaya ama fursad u helaya wax isku dayay hadday jeer inuu helo waddanka uu joogo waddanka fiican oo magaranaysa caafimaad doonta wada marka salaadana soo qaato wadamada hadda waxaan deganay waddanka Norway wadamada adduunka ugu casarsan haddana dadku waxay markay xanuunsan waxa u yaacaan tagaan Jarmalka marka qalwa meel bay u carartaa magaranaysa qof walba intuu markaa awoodi karo marka waxa laga yaabaa qofku markuu xanuunsado Norway ku xaleeyadaa barta Jarmalka isku saad يعني مر واحد لهذا مركا مرة ما يسنيان دولة مرة ودنا حنوجين وضن كإسبيتال هذا نور مركا تكتور لوش يجوا وحيكوا حيي لوش يجوا إن ينرهم ما يسنا قف حد مر هرج جرمل كتجين يكوي رادان أنا جرمل كإسكسو دوية أرض جرمل تك
markuu meeshii tago jamaalow isla wixii halkan loo soo sheegay unbaa loo sheegaa ma jirtaa arrintaasi ما هذا وجهته لكن هذا واحد تدق واحد جرى كلسونا قبان ودتك إنك بدن أنت بدن مسين قربها وحي مسين ودنك وعافاتك وناكسين ودنك جرمل مركا قف كسو ودنك من تعجبون إنه لو كان دوحة نصه وحسكت ده إنه تجمع جراسة جرمل كل صوب على مركز كده مركا هذا اللي عافات قبطنا واحد جلس كلسوني هدي وحي الله شيء واحد من الله شيء مركا قف جوا أقبال يا مركز لكن إلى أنت أنو تجين أنت بدن إلى أنت أنو تجمع جراسة جرملك وحسلي وحلا كام مكان عافاتك قال لي ربي مثلين دكتور كله بنا ولا ما تقول من قف مركا حود دريمية مركا ودن كنينا ما أنت مع دم يجري عند خاطر هبا إسكتر هوش إسكت بدناته برافيد باجرة قاد دولة داجرة لكن هذا قف يوحى مسين مرة ودن كي تشوفه إنه مرة ولا هلي كرين عافاتك وبعنا يا سحرة كده مركا سكودي حاجات قاري كرتا مركا ضد بن بحي تجان توبيا ضد بعض تقول أبو دوس قارسة قارب جيبوتي ما ده قارب وضم الدرس كتجا قارب كسر فقادو تجا مقراسة هندية ماليزيا لكن ماذا واحد بريان دم بأديات حيصوله تذكر أنت بدل كل شباب أما يتجيان سيدو طبعا نقطة تكرك وطان دونا يمركينان جدها أصوغلنا أو واحد بدن كأوغانون إسويدينو سببت التركيا الله بلاوي إن جماله لتقو وحن نقول مقالة جماله إن دد بدني أي كل قوان ومركا xanuunadan ugu badan ee loo tagana jamaalo waa xanuunkan kansarka ama craftiga afkan lagu yaqaano ee kansarka waan ogtahay cudurkan jamaalo isbitaalada lacag aad u fara badan baa ku baxda oo hadda wadanka Mareykanka waxaad arkaysaa 100,000 200,000 oo dollar baa ku baxaysa dawooyinka jamaalo isbitaallo waxa jira private oo la furtay oo dad isku xiran oo marka qowleysata aan u baxinay oo magaalooyinkeeni waaweynaa wadanka ilaa iyo haddaan laga digtoonaan marka oo ninbaa xanuunsanaya waxa ku dhacaya cudurka kansarka tolkiiba waxa wanaagsan oo lacag bay ururinayaan dad bay u soo dirayaan 40,000 maxay dadkaas isleeyin xagee abaarayaan maxay si khaladku xagu ka yimid jamaalo ee dadkaas Soomaalidu ay u maqlaan in Turkiga ka dilacday ما هذا واحد وين قف مركو حنوصل لبعض الأسود دريستو وحسكت ده يا مقراصة إنه ده سيدو مركها أوهل لا داو أو معافات سيدو لا بسكت ده ما هذا لكن تبغى واحد جرا مركها تحقق فرد بتاعها سيدو مركها كجرو استكلوا قفاي يستمر كاسي أو ربنا سيدو مقراصة وقعاوننا تصار واحد كينين باو حكيم ده لندن وحنا ده جرمك وحنا ده سوري وحنا وقت كتوريكا مركان كاس صوب برنامج مركان صاوي من ده وحنا ده بقصود ده جد بدنا نحصل بحول المال ما له جيب سشدار فوقنا مركان واحد كيب سنيوي وحلقنا من المكان كيم ده من تركيا ومكان قاعد في عام وقف على الجيش قال الله منكم بسكت ده يقول إنه لا شك يستو إنه ده وقعاوني محضر بانك قف الصومالية تاج إنه مركان يجي فراي لا سوقنا مركان وأنا يقول حلواشكي مركان لكن ما دام اللغة الإنجليزية قارن مركان وحنا أنا أسكت في الأول عندنا ما بحنا مركان لكن يقول حكي درين بيقولون درين إنه جري دق سيجارين الربع سنة مقدرتك الصومالي دق العقد كويك مانيا ودتك الصومالي مركان العقب الكلبوبي يمرك وحكى له مركز ودن كتقول ودن دائري ونعكس دتك الصومالي السودوية دتك الصومالي مركز ناس مسلمين هاني السودويين هم بقوا كيا مكتب لكن ده دبل واحد دفت لا جرتا مركز ضد واحد مركز جرتا أنا أقولك الرواد تركيا الصومالي لا بدر وقف قاعد يبني حنوسن كفاية ديستو مركز أما بيرو الشجع أما السيق قدروا كفاية ديستا مركز واحد وناس قفكم مقرانسا إنه ده إنه يسوق حنوسن يدورين العاوية هذا رب المكة إنه قصار سيجنو وحابد السويدية مركز ما هذا واحد جرى جماله إن أنت بنلسه هاد ليسين بردويتو وكهاد ليسين ولا الكيد وكحنوسين هاي تركيا وحلاقة قاضي العجا فرتن $1,000 وحال سيدي عادي وحيراد وحن كم بدينا 25 إرباضات ومركا عذر كان كانسر كوقبي مركي لسي باري وحن لو قاعد وحن إسبيتال كان بينه وحين إسبيتال رونا إسبيتال مركا سكحران وضنكي إلى هل كان أو ضد سكحران وقولي ستة أيهين ولعقتها أفرتن كاكون مركي بيبين إرباضات خلط اللي قم بدي وحبك صونا سعدين مركي أي وريجين نسيب وناق مركي وحو هيستي وسمايستي مركا قحوتيجن كاركا قحوتيجا markii ay la tageen isbitaalkii dawladuna kaarka qaxootiga ayaa u shaqeeyay oo shilin laga ma qaadin dawooyinkii lagu mudeeyay jirku markii la baarayna jamaalo waxa uu soo baxday waxaana baynay ahaayeen been laga soo abaabulay wadankii oo gurigii wadankeeni ilaa iyo Turkigana isku xireen marka arrimahaas oo kala dhacayaan sidee looga digtoonaan karaa maxaa se kaaga baxay arrimaha jamaalo maada waxa weeye qof marka hore ma garanaysaa waan dareemi karaa qof markuu xanuunsan dhibaato haysato دوران لوري مقراسة نبو كبقولو تري وحابة بدن باي مني فكرة بدن باي مني صح ودن كم باي كذا عيسى مركا قفكي كسوني أنت بدن ما هيستو دورشنو لك ويرانيسا لكن واحد وين تقفكي لبقى صار كل علاج سيد من الشكل عشان توكله إنه قفكي مركو ور هذه حقيقة
waayo waddankan adduunyada maanta aan joogno waxa ku batay magaraysa wax loo oran jiray magafaha ama mukhalasiin beena hadii jeer ka dilaacay oo dadka intay waddanka tagaan beenu sheegay oo koran ma garanaysan wax kasta waa laga daweynaya waxbarasho bilaash helaysa waxa badan oo been qofka aqriya si marka ay lacag uga helaan marka waxa looga digtoonan karaa waxa qofkan xanuunsanaya ama qaraabadiisa ama cid marka qofkan wada inay raadiyaan information ka saxda ninka waxa jirteen qofka laga qaada $40,000 laakiin the same time ay suuragal tahay qofkii bilaash lagu daweeyo marka loo sameeyo kaarka qaxootiga waxaan maqlay in waddanka marka Turkiga uu sameeyo marka waxa weeye qofkii isagu wixii bilaash ku heli kara in lacag inta badan looga qaada waa wax magarasa dhibaato laakiin dadku ha taxadiraan oo cid kasta inay iska aaminin cid kasta tada caafimaad baan haya inay aamin laakiin ha ka taxadiraan dadkii magarasa waddanka jooga la xiriiraan warar badan xoogaa la raadin way dad badan oo fiican oo waxa jira magarasa wax sax ah haya ama Turkiga jooga ama meelo kale jooga marka taladu waxay tahay qofkan xanuunsanaya ama cid marka mas'uul ka ah inay ka taxadiraan dhibaatooyinka dhacaya in qofkii looga faa'iideysto duruufta adiga ku jiro oo lacagtiisa lagu dhaco oo caafimaadkiisa wax laga qaban marka waxaan ku saarin aad nasiib darro amaado jamaalo meelka miid noqonin dadkeenu oo dad muslimiin Soomaalidu waanu ognahayna laakiin jamaalo kelmadan beenta marka waxaad ka dhawaa mar carabado tilmaantay inaad tiri kaar baa la sameystaa qaxootiga oo dadka qaxootiga marka kaarkii uu anfacayo ma dhacday dad baasaboorradii Yurub haysta oo inay si ay u helaan caafimaad inay yimaadaan Turkiga baasaboorkii dhinac dhigtaan oo yiraahdaan dib isku dhiibaan oo kaar qaxootiga ay sameystaan si ay markaa u helaan caafimaad u helaan isbitaaladan caafimaadka bilaashka kaarka qaxootiga ay ku helaan والله ما هذا ولا شيء لكن واحد ويد واحد هرت دبعتها أنت بدنا كم مثلا قف كي مدام قصة يوروب أما أمريكا إنه تركيا عفوا سور رات سودو أنت بدنا ما بدنا لكن واحد دعى سوى ولا شيء عدد بدني مدوني يعني إني دجان ودن كتركيا تهدرت مكاي باسبور دي هيستن قريان ويسكو ديبان قحوتينمو سمركاي وجهلا دجان شو ودن كتركيا تاسنا واحد ركرا لكن عواقب حمد مين كل مينين واحد شورت بيز واحد كفكريان وقت جابنا وقابن بو كفكريا هدي لقبتوني كان فرع لقى قاضية waddankii Mareykanku laga joogaa baasaboor Mareykan buu haystaa waa adduunyada way isku xiran yihiin marka isagu wuxuu isleeyahay in yaroo faa'iido business oo ama ganacsi ama waddanka Turkiga saad ku hesho laakiin marka eegto mustaqbalkii carruurtiisa iyo gurigiisa khasaaro intee la gudo kumaysaa ama u soo taagnin arrimahaas oo kale ma hada waxa inta badan ay khasaaro soo galay waa carruurta maanta la keenay Mareykan ama Canada ama Ingiriiska ama wadamada Yurubta ee maanta Turkiga la geeyo هذا المقرنس وحن نقول إن المشى الجوارين وهذا بدي بلوص يعيطون ما هذا مرة بدنا واحد جرت لو نجري القاهرة كشرنت سوريا كشرنت هاي منباسية كينيا كشرنت هاي مكان ما تروح حسنا وحلليه واحد كشرنت تركيا أساسا لقوي عيا لكن مقرنس هذا وقف كي ما تكيم من ودك يوكر والله قراب كرا ودوني مدير دبعت هذا يدقر كي بدون ميل نبض تالي ما دود نورش مقرنس ميل وقبل عبيه لو دعالات دا يلي تكون كسوف قاعد والله يا ما يقف لكن قف كي من يورو أما ودمض أمريكا أما كندا ما أنت دقيقة قحوتني ما يسكون لي سوق كارو هلا أما ودك أودجو وحصله وواحد عادي هذا رفعنين دبعتنا ومدة الصومالية ضباحنا قحوتيك الرسم جاه ما أنت دبعتك سوق كأي منسى عقبتكم نقرنسو وهذونا يتبادل سيد ودمادي هراك صار ربع أنت كالصومالية لا نوع والله أركض مقرنسا بنتو دبلان تاي دبتو دبلان تاي إسكهورية دبك وريجي وما أنتو وحن دريمي ودك تركو إنه الصومالية أبال بدنو حي إنه الصومالية أمسية إنه الدنيا ذاتك الصومالية دبعت سيرنا عاوسة وطبعاته ويوضمون بدنا واحد دري لفتو المسلم ما هذا لكن ذاتك لا ترحيله لما استافري ولا دبعتيه لكن ترجع أنت كمان دعوة تطبق الله شيء كسوع كل واحد الله شيء كسوع حي شيء تمر كوكل هدي لو قف الصومالية أو اللي مسلمة إن مقرسة المشهور دويني لو احترامه حتى وضمنا كلا أفريقيا كسير تريين تو كلا أمريكانكو واحد شيء تروح على الصومالي وقاعد يقف الصومالي شيء تروح دبعته له ما جيسته ولا سود دوية مركا يعني واحد سلاي تذكر فرصة يعني لقى عيارين لو قفت مقرسة أروبا هنين إنه تذكر فرصة كعيار بعض وأن دريمي كرا قف الودن كيتشوجا ومن كرا وتسويق عادي لكن قف كندا أمريكا أما يوروب وحنا أركان مقرسة إنه وقت لمستاي نعرفه مستقبل لقى عياريو ويمشي مال جوجي دونا مدة كده بروح ورد دونا أما ميركل وجوري دونا ورد دونا من هم نكبل عبنتي أما ودن كيس بدو نقول عروتي بوينان سان هرب وصار إنما هذا مركب واحد دي بتدا لما كان لقيت تحضيره بانتاي أو عروب مركب تدك جوريان إني مركب إيجان محاول ذاك الدنيا محايج السوق اللي عروتي محاسو جالسة أنا جم محا فائدة خسارين تلك بكوجريان قف كمان كندا كي مدام أمريكا مدام يوروب تجا ترمرك تجا تركيا هل كان شو مرة شخص سنة دبل نقطة أنا واحد كان خسارة جالس وعروتي سوق كبابايو وقتي كلميو وعروتي وويناتي ودادي كبح دبل نقطة دونا سهل دارنا وكلا أمريكا دباتك إيمانسون مركب حولنا السمعة الصومالية للدين
maadaama waddankaas sumcada dadka soomaalida aad u jecel yahay jacaylka ha la kordhiyo ha la xoojiyo oo yaan fursadda iyo sumcadda aan lagu ciyaarin maran lamaado waa gartay haddaan dib ugu soo noqono markaan jamaalow dee waddankeenii wataa laga soo tegayo dad badan baa ka iibsaday guryo waa wax wanaagsan oo ganacsigu aanu kama hadlayo dadka sida sharciga u yimid sharciga u degay markaa guryaha ka iibsaday dad badanna way ka iibsadeen ankara istanbul kasoo qaadataa de gobolada halkan waa la tagaayo oo laga iibsadaa taa anagu ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa anaga qowleysatada ganacsiga markay noqoto xagga caafimaadka caafimaadkuna waa waxa ugu dambeeya ee qofku una lagu ciyaari karaynin waxaan kale lacag waa la helaa lacagna waa la waaya jamaalow taa waanu isla garanaynaa laakiin caafimaadka ilaahay caafimaadkeena husiiye caawa fartaa yar haddii lagaa qabto uma adkaysan karti fartaa unbaa ku xanuunaysaa marka waxaan doonayaa sidee looga hortegi karaa baad is leedahay ama bulshada soomaaliyeed inay isku xirnaato la sameeyo hadday safaarad meesha jirto run caddee markaa waxaa la doonayaa qaybta caafimaadka attachment la sameeyo ama dad kaloo markaa urur caafimaad ka hortaga waxaan meeshii saxda ahayd soomaalida turkida ee afka ku hadasha kuwaan qowleysatada ahayn sideeba markaa looga hortegi karaa oo la oran karaa meeshii saxda ahayd baad u jeedaan ayaad u socotaa mise qofkii waad sidaa tilmaanto carabaabtoo tiri mar hadduu nin xanuun hayaa boqol u taliyay bahda waa dhibaato jirtaan oo xasuustaa muddo aad ka surtay ilaa 2 bilood ayaa waxaa lagu yidhi inay yaro markaa waddankii joogaa oo markaa xanuunsay wax loogu geynayaa South Africa oo kale lacag baa laga qaaday aad fara badan oo $2,000 haddana waxba looma qaban sidii iskaga daba ka wareegay la waxbaa soo socda waxbaa la keenayaa baasaboorkii waxa loo diray Kenya xagga bay ka wareegtay ayaa markaa inankeena markaa waxaa tibdin waqtigiisa u yimaado markaa uu dhinto ilaahu naxariis marka waxa weeye qofku markuu dhibaato haysta isagu inta badan doorasho male laakiin dad badan waxaa jira waxaan qaban karin qofkina markaas dhibaataynayo oo lugoynaya maartay ama lacag ka dhacaya oo ka faa'iideysanaya markaas qofka dhibaataysanaya markaas dhibaatada haysto way waxa weeye qofka markuu muslim yahay qofka dhibaataysan inuu caawiyaa waajib uga laakiin qof dhibaataysan oo xanuunsanaya inaad xanuunka uga faa'iideysato lacag ka dhacda ama been jirta ama lugayso dhib bay ku noqonaysaa markaa ma hadal marka waxa weeye dadku markay dhibtaasi jirto waa waxa kugu daran adigoo lacagtaadina way caafimaadna waay markaas aan hantidaadu kaaga baabi inuu qofkii ka taxadiro oo sameeyo markaa horeysa markaas baaritaan dheer oo uu leeyahay waxaan bal horta qofkani muxuu yahay muxuu hore u soo qabtay si loola soo xiriiri karaa saas sheegaysa hadday safaaradi jirto kale waa muhiim inay la isku xidho qofkii la helo dad markaa u qaabilsan oo ka shaqeeya safaaradda oo dadka Soomaalida imanaya waddanka caafimaadka u sahla una sheega markaas waxyaabaha runta oo yiraahdaa oo soo jeegay dhaqtarada runta dhaqtarada beenta oo marka dhaqtarka runta soo yara yiraahdaa dhaqtarkaas runa dhaqtarkaasna wuxuu leeyahay dhaqtarkaas ognahay wixii laga qaaday systemkii oo qeexan qof loo soo diro wixii loo markaas wax la isku hubo laakiin qof tariiq iska marayo qof wadankii jooga maanta kula magaraysa aniga dad garo Turkiga ku geynaya ama marka geynaya waxa dhibteeda leedahay khatarteedana waa liiman la isku xiran oo dadkana afka Turkiga ku hadlaan Jamaalow waa Soomaali afka Turkigana kuula hadlaya marka miyaanan imika sidaa tiri waa sax inuu maaragtay qofkani waxaa la leeyahay in Turkiga lagu geynayaa halkan uu ka tagayaa waa la kaxaynayaa ilaa isbitaalkii xataa looma leexinayo meel kale isbitaalka guriga u samaystay isbitaalka leh lacagtiiba 10,000 ama 15 baa soo subaysaa 10 cisho kadib adigii baa lagala soo qaylanayaa Norway Mareykanka lagu leeyahay in hebel ba xanuunsan wax soo tara lacagtu hadduu ku caafimaadayo ilaahay caafimaadka bixiye waa wax wanaagsan oo 40,000 oo meel sax maray laakiin soo cawaaqib xumo maaha inuu meel been ah uu maro oo markaa meeshii saxda ahayd iyo isagoonan Soomaaliduna information ma sii raadsato mawduuciyo ma baarto informationada saxda ama baarto inuu ma oranaya anaa ku soo doobay isbitaalkaas saxayatay taa un buutan soo tagaya Soomaa ama hada dawaa saajirto dadka Soomaali dhibaata haysata way dokumentigooda lama dokumenti ma haystaan baasaboor ma haystaan imka wadamada kale qof wax laga yaabo baasaboor helo fiisa oo helo dasi toos u raadsado maadaama dadka Soomaalida ay baasaboor haysanin oo ku dhibayeen makaraysa taasa markaa keenayso qofkii inaan looga faa'iideysto dhibaatada haysata dariiqan markaa maraan ma jirto been oo loo leeyahay hebel baa waxaan loo sameeyay waxba la wado beentu waa u way dheeraysaa ma hado sadowgeena dadka hadda waxa wax loo yaqaan mukhalasiin baa meel u joogto ku ciyarka tahriibiya kamida ku caafimaadka dadka ku shaqaysanaya kamida marka qof kasta in la iska aamino ma wixii bal inta la hubin kara in la hubiyo ilaa xad oo la isku day waxaan ma saxbaa mise ma oo laga taxadiraa ma aad muhiim ah daawadayaal waxaan halkan isla gorfeynaynay oo Jamaal iska wareysanaynay dhibaatooyinka markay noqoto xagga caafimaadka qowleysatada dhinaca Turkida iyo waliba qurbaha kale ee caalamka gaar ahaan aan u badinayno in xoogga Soomaalidu ay saartay xagga iyo qurbaha xagga iyo Turkida
oo isbitaallo aan sax ahayn oo khalad oo information khalada laga soo siinayo wadankii iyadoo markaa hadday noqoto lacagaha kaa baxaya lagu qiyaasay markay noqoto cudurka kansarkana lacagta ugu yar ay tahay 40 kun 50 kun 60 kun oo dollar oo markaa kadibna ay hal bacaad lagu leeyahay noqoto talada u dambaysa intaan ka bixin hawada markay noqoto xagga iyo caafimaadka ganacsigan caafimaadka ay Jamaal noqotay baryahan xoog la saaray oo wararka caalamkuna ay sheegayeen maada waxa leeyahay dadka caafimaad dadka xanuunsanaya maanta caafiyo waxaan rajeynayaa inuu system-kan hadda la system ka fiican iman doono oo dadku meeshay doonaan iska daweyn doonaan oo la heli doono marka system wanaagsan laakiin taladeedu waxay tahay wax weeye maada inuu qofka xanuunsanaya caafimaadkiisa laakiin inuu caafimaadna sheego lacagtiisa adduunkiisa oo sheego waa laga fiican yahay in laga taxadiro oo cid walba la rumaysan ee la iska hubiyo oo aad iyo aad loo wareysto la isku tayin la helo magaraysa warar xaqaaqiqa ama warar run la helo oo sida qofkani ugu macquulsan oo u baari karo baaritaan marka loo sameeyo ee una maqal qof suuqa wareegaya oo oranaya magaraysa ama dad badan waxay marka la sheego wadanka jooga sameystay agensiyo ay ka sameystay wadanka xafiisya oo boqolkiiba 80 xafiisya been ay yihiin marka waxba ka jirin marka la iska hubiyo laga taxadiro qowleysada ma sheegayna magaraysa ama dadka burcad dadka ka faa'iideysanaya ee dhigmiiratada ee umada dhibaataynayna aad iyo aad looga taxadiro hala la iska hubiyo la maado وسدا وشيء وبرنامج كني arrimaha bulshada gaar ahaan xagga caafimaadka aanu qayb ka soo qaadanay xagga iyo Turkiga iyo ganacsiga Soomaalida Jamaal aad baad u maasantahay aad baad maasantahay aad iyo aad waa radio maqal interfm 105.8 FM ayaa toos nooga dhageysanaysa dhinaca FM ta oo dad badan oo Soomaalida naga dhageysanayaan caawa oo bishu tahay labadii bishii 2019 wadaagayaal sida ay nabadgeliyo isbuuca dambe sabtiga habeen wanaagsan waxaan tahay barkayga dunyada sabaxi moolahay qalbiga kama baxay sidee waxaan tahay barkayga لا ينبغي اليوم جمال. باي.